السلام عليكم. maalmaha ciidu waa maalmo farxadeed oo ka duwan maalmaha caadiga ah. muhiimad gaar ahna u leh carruurta meel walba oo ay ku nool yihiin. wax walba ay u dulqaadan karaan ilmuhu, laakiin in dhar ciid la'aan la dhigo iyadoo carruurta kale ee asaagooda ahna ay ciidayaan ayaa ah mid aysan sinaba u aqbali karin. carruurtu ma eegaan awoodda dhaqaale ee waalidiintooda, mana isweydiiyaan in aabbahood iyo hooyadood ay awoodaan inay dharka ciidda u iibin karaan iyo in kale. waxa kaliya ay ku qanci karaan ayaana ah in dharkooda ciidda la soo diyaariyo sidii la doonaha lagu keeno. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wiil yar oo Yemeni ah oo ku jira xero ay ku nool yihiin dad soo barakacay oo qisadiisu ay ku faaftay dhanka internetka kadib markii uu soo bandhigay muraayadaha indhaha ama ookiyaale uu ka sameeyey bir ama silig, taasoo la soo dhigay suuqa xaraashka ee online-ka balse loo helo cid ka iibsata si wiilkaas yar looga caawiyo in loo iibiyo dharkii uu ku ciidi lahaa ciidul fidriga soo socota. inkastoo ookiyaalahan uu gacantiisa ku sameeyey Maxamed ee lagu iibinayay internetka uu ahaa oo keliya mid ka samaysan silig yar oo la isku laabay, ayaa haddana waxaa ookiyaalahaasi ku duugnaa micno aad u weyn oo dhanka bini'aadanimada ah. Maxamed waxaa isaga iyo qoyskiisa oo ka soo barakacay dagaalka tan iyo 2014 ka socda Yemen ay ku nool yihiin xaafadda Ma'rab ee waqooyiga Yemen. waxaana wiilkani yar uu nasiib u yeeshay in ookiyaalo bireedkii uu gacantiisa ku farsameeyey lagu iibsaday 2 milyan iyo bar riyaalka Yemeniga ah oo u dhiganta qiyaastii $4,000. waxaana iibsaday maamulaha guud ee mashruuca miino saaridda waddanka Yemen, Ustaad Osama Al-Qasibi, oo u dhashay dalka Sacuudiga, kaas oo si toos ah ula wareegay ama u iibsaday ookiyaalo bireedkaasi cajiibka ah. laakiin fikraddan miro dhalka ah waxaa lahaa wariyaha iyo sawirqaadaha Yemeniga ah ee Cabdallah Al-Jaradi oo boggiisa Facebook ku soo bandhigay sawirka ookiyaalaha Maxamed balse uu ugu helo cid ka iibsata si Maxamed yare uu nasiib ugu yeesho inuu dhar cusub ku ciido. Al-Jaradi oo ka sheekeynaya sidii ay ku bilaabatay sheekadan ayaa waxa uu yidhi, si aan sawir uga qaadno beddelkeeda waxa uu Maxamed oo ku soo barakacay dagaalada ka socda Yemen oo aan maanta la kulannay uu noo hadiyeeyey wixii ugu qaalisanaa ee gacantiisa ku jiray isagoo hortaagan saaxiibadiisa, waana ookiyaalahan uu gacantiisa ku sameeyey. wariye Al-Jaradi waxa uu intaa raaciyey in fikradda loo iibinayo ookiyaalaha Maxamed ay tahay si qiimaha lagu iibsado ookiyaalahan ay kaga kaafiso Maxamed iyo 2 saaxiibadiisa ah in loogu iibiyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen ciidul fidriga. waxa uu xusay saxafigan Yemeniga ah inuu aad ula yaabay qiimaha lagu iibsaday ookiyaalihii Maxamed oo uusan marnaba filaynin, isagoo sheegay in Maxamed yare iyo saaxiibadiisa sidii ay ka ballan qaadeen ay u iibin doonaan dhar ay ku ciidaan. sidoo kalena carruur kale oo gaaraysa 200 ayaa lacagtan $4,000 ah looga iibin doonaa dhar ay ku ciidaan, sida uu caddeeyey ninkii fikirkani lahaa ee Al-Jaradi. haddii lacag dheeri ah ay soo harto, waxa uu Cabdallah Al-Jaradi sheegay inay dhar ciid ugu iibin doonaan carruur kale oo barakacayaal ah oo iyaguna ku nool kaamam kale. kadibna caddaynta sida uu u maareeyey lacagtii lagu iibsaday ookiyaalihii Maxamed uu ku soo bandhigi doono isla boggiisa Facebook. fikrad yar oo aad keento ayaa mararka qaar soo xareyn karta dhaqaale fara badan, waxna u tari karta dad badan oo danyar ah oo ku jira kaamamka barakacayaasha sida Maxamed oo kale. markayaan laga bakhiilin in la caawiyo carruurta aan nasiibka u yeelan inay helaan daryeelka waalidnimo iyo waxbarasho toona. daruuraha